Cabdulaahi Godah Barre oo ka hadlay arrimaha Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa sheegay in qadiyadda reer Sool, Sanaag iyo Cayn ay tahay arrin u taala Soomaali oo dhan. Sidoo kale Wasiir Godah ayaa sheegay haddii aanay reer Sool jiri lahayn inaan maanta midnimada Soomaaliya lagaba wada hadli lahayn. xataa arinta waqooyi ay fudaan doonto arinta oo muxuu ahaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn mushkiladooda waa mushkilad Soomaaliyeed saaniga qabo maxaa yeelay haddaysan iyagaas jiri lahayn waxaan aaminsanahay midnimada Soomaaliyeedna lagama hadleen maxaa yeelay waxa weeye waa linkigii isku xirayay dadkan north iyo south inay ku kala abtirsadaan rabaan iyo Talyaani iyo Ingiriis dadkii isku xirayay waay waxyaabaha mararka qaarkood dadka ay ka hadlaan waxaa ka mid haddii Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay yiraahdaan maamul goboleedaan nahay waddankaas Soomaaliya yiraahdaan ka tirsan noqon nahay waa la hubaa Somaliland waxay jeclaanayaan ma aha maxaa yeelay waxay dhuminayaan xuduuddii Ingiriiska si yani doodaha siyaasiga ay sheegaan laakiin Puntlandna sida dooduhu sheegaan iyaga laftigoodan raalli kama noqonayaan waxyaabaha waxaa la sheego waxaa ka mid a waxyaabaha ilaa fikirkan fikir oo mucjizo ah oo adag oo ma aha waa fikir oo basiid ah intay dadku is abaabulaan ay yiraahdaan maamul goboleedaan nahay maxay u dhihi la'yihiin sababaha ay u dhihi la'yihiin sida dadku siyaasiyiinta ay sheegaan waxaa ka mid a in Puntland laftirkeed aysan raalli ka ahayn in maamul goboleed meeshas ka dhaco mar hadday saas tahay hadday saas noqoto meeshaas waxay u baahan tahay dharaandhirin siyaasadeed oo weyn maxaa yeelay Sool iyo Sanaag iyo Cayn dhinacaasna ma raaci karaan oo dhowr mar intay raaceen ay kusoo hungoobeen dhinacaanna ma raaci karaan oo muxuu ahay inay meel istaagaan isku soo khilaafeen laakiin waxaan u malaynayaa hadda bisayl siyaasadeed uu jiri karaa oo dhinac walba muxuu ahay laakiin waxay u baahan tahay shaqo in dad siyaasiyiin oo laab wanaagsan ay ka shaqeeyaan arrintaas wacyigelinteedana maybe mawduuc fiican waye in mar lasoo qaato oo aada looga doodo waay ay maamul goboleed weligood ay ugu riyoon waayeen dabcan organizations aa jira oo khaatumo iyo heblow khaatumo markii la sameeyna midkaa la sameeyey yaa sameeyey oo kasii dambeeyey khaatumadan inclusive ma ahayd mase exclusive ahayd yani waxaasoo dhan waa dood siyaasadeed furan oo haddii si saraaxa wanaagsan looga hadlo laga yaabo inay xal inay muxuu ahaa reer Sool iyo Sanaag iyo u keenta keliya maahan xataa xal inay Soomaaliya iyo Somaliland iyo waxaan la kala sheega oo dhan in xal u noqotaa laga yaaba